الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما مرت شرفته وجوه الرئيو وزيرك عصب وزارة قاديدك عبد الله أبو بكر عثمان وأننا المدرب سنقالين صاحبنا هاي رنتي حاجة يقيمة وين كله وزيرك حقيقة وزارة سهل مهد جامع قراتك دولية سرة محمد عبد الرضل وماريها هيدا مظاهرة يدولستا مدحدي هورا قاسمي وزير دولي هورا وزارة دير الشقيني قاسمها جودة وزارتها عمر لا تلياشي أو جوجو ذاك خبير كاه الرجل يقول عداسن مدار كنا رنتي أساس كيسي وقت إنجليز كا كلمة دي هورا يسكيلي وافديا maxaan ku dhahdaa agaasimo waaxeedyada gudoomiyaha guddiga horumarinta madaarka Burco dhammaan marti sharafta kale iyo shaqaalaha madaarada iyo wasaaradda waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sharaf weyn bay maanta ay tahay farxad ba xilku waa sunne waxa weeye markuu bilow jiro wax kasto bilow leh dhamaad buu leeyahay oo nolosha aakhira ahayd wax kasto oo bilow leh dhamaad buu leeyahay dhamaadkaasa bilow hor leh oo ah cid ilaahay oo garto waa mas'uuliyadaas waxaan maanta wareejinayaa waxaan ku dhawaaqayaa maanta inaan si rasmi ah wareejinayo wasaaradii duulista iyo gaadiidka cirka oo imika laga bilaabo noqonaysa shukran adeer thank you very much oo imika noqonaysa oo isu rogtay hay'adda duulista madaniga iyo madaarada wasaaradaha ugu sareeya ugu tunka weyn bay ku jirtay qarankan wasaaradda yar maaha waxay maamulaysaa 7 madaar oo ka Hargeysa ku jiro ka Berbera ku jiro Burco Ceerigaabo Laascaanood Kalabayd iyo Boorame intaasoo madaaro shaqaalahoodu uu ka badan yahay 400 shaqaalaha ku dhow yahay ayay maamuleysay ma hawl yareyn waxaan muddada xilka ku hayaan waxay ahay sanad iyo waxoogaa 4 bilood baan filayaa sanad iyo 4 bilood waa shaqo safarisan satifo u baahan inaad subaxdii ka lahdo 6 imanay shaqada xafiiska waxa kalifay waxa ahayd telefoonkayguna 24 saacadood kulli waxaan filayaa inay maamulayaasha madaaradu marxaati ka yihiin wuxuu ahaa mid la helayo waajibka shaqada wasaaradda qabanayso ayaa lahaata oo ah waxa hawada marayeen mas'uul ka tahay diyaaraduhu dadka raacaya mas'uulka ma aha safety-geeda iyo amnigeeda iyagu waxay ka mas'uul yihiin ay ku raaxaystaan halkan ka raacaan halkay doonayaan u tagaan cidda ka mas'uulka ah ee waajibkaasi saaran yahay waxa weeye wasaaraddaasi ahayd maanta ay isu rogtay wakaalada madaxa bannaan ama hay'adda madaxa bannaan mas'uuliyadaasi cidda koowaad ay saarantay waa cidda ugu sarreysa maantana waxay saarantay waxa weeye Cabdullaahi Abubakar iyo chief pilotka Cabdi Rodol ilaahay baa mahadle anna inaan ka nasto xilkaana waajibkiisu sidaa yahay wasaaradda intaan joogay runtii ismalihi isfaani oo waxa weeye waa wax xun faanku laakiin waxaan isleeyahay maydaan hakranin dadaal baad samaysay nidaam iyo hufnaan maamul baan isleeyahay waad kaga tagaysaa maalintan imi sidii ninkii shaqaalaha hadlay sheegay shaqaaluhu ninbuu iska eegi ma garanayo sababta ninbuu uga dheereynayay wasiirka iyo agaasimaha ninbuu maxaan ku dhahdaa marka waxaan isku dayay inuu systemku shaqeeyo ee aanay shaqaynin kala horeyntii ay soo dhawaanshiyaha iyo waxyaalaha kale dhaqanka ee noomiska aynu ka dhiganayno taasina waxaan isleeyahay waxaan uga tagaayo saaxad caafimaad qabta oo shaqaalaha oo dhan cuntanta mustaqbalkana waxaan rajaynayaa oo ku dardaarmayaa mas'uuliyiinta xilka loo wareegaysa inay by merit inay ku abaal mariyaan shaqaalaha inay noqoto aqoontooda daacadnimadooda iyo dadaalkooda iyo tacabka ay la soo baxaan ee aanay ahay sidii ugu soo kala dheereeyaan biidin Ilaahi tacaala
xagga shaqaale badan baa tababar la siiyay runtii waxaan soo qaadan karayaa shaqaalaha ATC ama Air Traffic Controllerska markaan ogaanay in hay'adda ICAO ay u xagal daacaday oo ay u sii jeedo inay dhinaca saarayso dawladda South Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya qasab waxaan nagu noqotay inaan ka gabanin ee nuu tababarshaysan qalab ahaan tayo ahaan iyo shaqaale ahaanba sida suurto gelinaysa inaan ku sii wadno oo aynu inagoo xora ku maamulan karayna hawadeena taana oo ka duuleynaa 10 shaqaale 8 baan leeyahay ayaa fursad helay ayaynu u dirnay maxadka tababarka ee aviation-ka Ethiopia taasoo naga mahad celinayo wasiirka gaadiidka Ethiopia Axmed Shide oo arrintaas suurto geliyay waanay soo dhameysteen maantana wasiir iyo maareeye waxay diyaar u yihiin in diyaaradaha iyagu maamulaan hagaan soo fadhiisiyaan duuliyaan oo kaga maarmi karaysaan cid kasta kale oo maanta sida ay kaawo shaqaalaheedoo kale oo meel kale wasaaradda ka soo gasho haddiiba ay dhacdo in la kala maarmo oo la kala tago oo heshiiska ay kaawo oo ku eg bisha February 2018 waxaan isleeyahay xagga infrastructure-ka wax badan baa ka qabateen xagga security qalab casri oo badan waa ku soo kordhinay wadooyinkooda qaar baan ku soo kordhinay sidii wasiiru dawladdu sheegay tusaale waxa waa halka howlkan aynu fadhino oo aan hore u jirin waxyaalihi aan soo kordhinay ka mid tahay oo inoogu talagalay inuu noqdo arrival VIP arrival oo wasaaradda dakhli u soo kordhiyo iyo madaaradaba oo cost yar la saaro oo qofka waana ku dhibtoonin maartay in waxa imaka laga VIP da dadka ah oo dhanbe waxay ka wada dhoofaan waxa weeye departure-ka iyo arrival kuwa isku VIP kaliya maadaama VIP kaliya yihiin khatarta ay leedahay waxa weeye inay wax isu dhiibi karayaan marka for security wise xagga amniga iyo xagga fududayntaba waxaan uga fakiray inaanu ka soo kordhino qalab badan baa lagu soo kordhiyo kuwa diyaaradaha wax ka roga ama saara oo ay ka mid yihiin curyaamiinta gaadhiga imaka gaadhaha jooga casriya oo kursigii leh oo qofka curyaanka diyaaradda saaraya sida madaarada caalamiga markii aan anigu hortay muu joogin gaadhigaasi dhib baana ka haysatay shaqaalaha madaarka inay helaan qalab sidaas oo kala falilaahi alxamd baan leeyahay maanta haddaan soo koobo waxaan isleeyahay way dhiman tahay horumarinta halkaa in laga sii wado mooye duruufo dabcan waa jiraan oo duruufo ku xeeran oon tilmaami doona waa jiraan duruufo xagga inaga iyo dawladda Soomaaliya oo xagga hawada iyo maamulkeedu waa jiraan waxyaalahaas oo dhan si gaar ah baan halkan ma ahayd ku sheegi doona iyo ku tilmaami doona shaqada iyo maamulkeedana ku fiican tahay waxa jira sidii rag odayaal ka hadlay sheegeen dhul badan oo ah duruufihii anigu aan kula wareegay wasaaradda oo dhulkaas oo dad shicib lahaayeen oo madaarka galay dadkaana wali aan wax xuquuqa laga siinin loona sheegay in dhulbada ay siin doonto dawladda hoose Hargeysa sidoo kale burco lafteeda madaarkaas gudida ka warramaya siyaasad jirta waa duruufaha ugu badan ee runtii ugu soo noqon recurrent-ka ahaa intii aan joogay xilka taana waxay u baahan tahay xikmad iyo dadkeenu waa dad muwaadiniina waa dad jecel inay wax kula xalilaan waa dad jecel haddii caqli wanaagsan la tuso iyo hufnaan iyo daacadnimo aan maartay dhib keenayn horena iyaga dhulkooda u bixiyo ugu deeqay iyadoo qasab lagaga qaadin culays kasta dawladdu ha saartee maantana waxay diyaar u yihiin sida anigu aan ogahay intay imanayeen in dhulkoodaas wixii ugu suurtagashan ee xaqoodii loogu bedelo waqtiga ku munaasib ama loo cadeeyo anigu waxaan ku talin lahaa oo aan wado gacanta ku hayay in cadaymo loo sameeyo dadkaasi lahaanshiyaha dhulka inay u sugnaato oo ay warqada ay barkabada gashadaan si haddaan awood dhaqaale maanta loo helay ama dawladda hoose Hargeysa burcaanay u bedelay dhulkooda dhul bedelaanay siinahayn ay u helaan cala al-aqal wax asad oo ah macnaha uga turjumaya lahaanshiyaha dhulkoodii taa waxaan isleeyahay waa talada ugu wanaagsan ee isleeyahay waad ku biiri karaysaa inay u fududeysaan liisaskana waxa haya midna agaasima guud baa haya kuwa kalena waxa haya Sheekh Cali Mawlid oo ah gudoomiyaha gudida horumarinta madaarka Burco madaarka Burco dhismihiisa waa bilowday sababtan waa la isweydiiyaa maxaa degdeg ku jiray muxuu ahaa maadaama dawladda xukuumadda aan ka tirsanaa ay madaarka qorshe ugu tala gashay madaarka berbera in lagu wareejiyo imaaraadka madaarada nidaamka u yaala waxa weeye alternate airport madaar kale oo diyaaradaha soo degaya haddii cilad ku kacdo ama hawada cilad ku hesho ay emergency ahaan ugu degaan waa inuu jiraa maanta diyaaradaha soo degay caalamiga oo dhan waxay ku degaan Djibouti in case ay ciladi waayo madaar kale oo inoo shaqeynaya ma jiro sababtaas awgeed baan u dadajiyay iyadoo duruufta dhaqaale aan ogahay ku dhacay calaladayg bay ahayd aan khatarteedana u badheeray runtii waa la jeexay heshiisku iga horeeyay bariga $700,000 baa hore loo siiyay
كومبانيغا dhismaha waday aniguna intii dambe heshiis saxan la galo nidaama lacagtiina waxbaan ugu daray wixii dambe ee aan la ballan qaadayna duruufii abaaraha ayaa inaga soo gaadho duruufo adag bay nagu dhacayo abaareed iyo doorasho waxaan filayaa taasina waa hawl idin taala idinka sii wadisteedu waxaan u aaminsanahay inay khasab tahay iyo lama huraan in madaarkaasi noqdo mid shaqeeya maadaama diyaaradaha halkan kasoo degaya u baahan yihiin madaar kale oo ay ku degi karayaan inta la dhisayo madaarkii cusbaa ee berbera oo isna qorshaha ku jira oo isna dokumentiyadiisa aan idinku wareejin doono biidnillahi tacaala taana talada ku darsan doontaan insha allah ugu dambeyn anigoo aan hadalka intaa isle kusoo koob inta koobana nuxur ku jiraana ay muhiim u tahay ee gaabani waxaan u mahad celinayaa dhammaan shirkadaha ee ka howlgala madaarkan oo ay ka mid yihiin shirkadda star ee shidaalka siisa diyaaradaha shirkadda SRM ee security-ga madaarka oo mas'uulka shirkadda Nasha ee handlinka diyaaradaha rogistirarista ka shaqeysa shirkadda Dalmar Launch oo VIP-yada qayb maamusha shirkadaha taxiga ee tagaasida oo runtii iyaguna kaalin mugla ka qaata amniga iyo socodsiinta habsami socodsiinta shaqada iyo shirkadaha kale halkan aan ku soo koobi karin waxa kale oo mahad celinayaa shirkadaha diyaaradaha ee Dalo Air Arabia Fly Dubai Ocean Chuba iyo haddaan qaar ilaabay waa iga raali Ethiopian Airlines sorry waan dareensanahay inaan qaar kale ka tagay iyagana waan u mahad celinayaa runtii hufnaanta iyo ku dhaca iyo adeega wanaagsan ay bixiyaan ee ay dadkeena siiyaan iyo wada shaqayntii wanaagsanayd ee naga dhaxaysay muddadii aan joogay iyo runtii wada tashiga naga dhaxeeyay fiicina waan uga mahad celinayaa ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa iyadoo taasi ugu dambeynay waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha oo ugu horeeyaan wasiiru dawlihii iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii guud oo la-aantood himilada iyo wixii aanu gaadhnayno achieve garaynay aanay noo suurto gasheen dabcan si cuntanta oo milgale oo sharaf leh waxaan ugu mahad celinayaa maamulayaasha madaarada iyo shaqaalahooda iyo dhammaan shaqaalaha iyo agaasimaha wasaaradda oo dhammaantood aan leeyahay udub dhexaad bay u yihiin wasaaraddan waa dad aqoon leh u soo adkaystay marxalado fara badan waxa kaliya u baahan yahay waxa weeye aqoontooda in la dhiso laga warhayo waan ogahay duruufaha ku xeeran ee dhaqaale gunada yar ee la siiyaa kuma filla iyo mushaharku marka loo eego 4 habeenimo imanayaan laakiin haddana waxaan ogahay miisaaniyadda wasaaradda iyo duruufii abaareed ee dhacay oo wasaaradahoo dhan miisaaniyadda laga hakiyey 3% laga jaray operational cost-kooda inay qasab igaga dhigtay muddadii aan joogay 15% inaan gunadii wasaaraddu siinaysay hoos u dhigo waxay ku timi wada tashi go'aanan keligay gaadhay ma ahayn waxaan kula talinayaa mas'uuliyiinta xilka la wareegaysa haddii duruuftu saamaxdo way u cuntamaan in 15% ka iyo mid ka badanba oo dakhligu idin saamaxo in lagu abaalmariyo loo soo celiyo laakiin ku talagalkaygu wuxuu ahaa in shaqadu sii socoto oo aanay berito mushahar la'aan ku dhicin inaan maalinba halkaanu joogno aanu dib u eegno hab maamulka iyo resourceska yareenu haysano taana raalli bay iga ahaanaysaa waana ay saamaxaysaa haddaa u aragteen inaan idinkeeda ku jiibsaday laakiin waxaan u arkayay inaan waxa aan qabtay isleeyahay waad qabatay ee yare kooban iyo waxa aynu qurxinay madaarka iyo hab maamulka aynu sameynay inay keentay isku tashigeena ee aanay suurto gasheen ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ina karsiiyeyna madashan inaan isugu nimaadno waxaa kaloo u mahad celinayaa madaxweynihii hore jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo xilkan aniga ii magacaabay waxaan mar kale isna u mahad celinayaa madaxweynaha cusub ee mudane muuse biixi cabdi oo runtii xisbigan uun ka soo baxay madaxweynahaygiina ah runtii isagana waa u mahad celinaya waxaan ugu mahad celinayaa dee fursaddaa guusha ilaahay siiyey iyo sidoo kale go'aan qaadashadiisa ah inuu cidda uu shidhaho maanta waa kula dhaqaajin karaysaa uu keeno annaguna aanu garab taagannahay aniga iyo cabdilxaaji cabdilaahi oo ka mid ahaa wasiiradii hore cabdillaahi cukuse aanu diyaar u nahay inaanu noqono garbaha dhinaca taagan madaxweynaha wasiirada dhinaca taagan khaasatan maxaan ku dhaha wasiir cabdilaahi iyo maxaan ku dhaha wasiir ku-xigeenka iyo maareeyahaba waa garab taagannahay wixii aqoon ah iyo garasho ah iyo dadaalaba waa idila garab taagannahay idinkamana fogin magaaladun baanu degannahay waana mahadsantii dhammaantiin marti sharafta wasalaamu calaykum